وذكر في لبض محوط وحقوق من كراني أنت ويتنو ولا ليا أنت ويتنو ولا ليا أول تنو ولا وذكر في لبض محوط وحقوق من كراني أنت ويتنو ولا ليا أول تنو ولا ليا أنت ويتنو ولا ليا أول تنو ولا ليا. بسم الله الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد السلام waxaan dhammaan idinka mahadcelinayaa sida aad u soo ajiibteen munaasabadan aynu doonayno inaynu ku taageero dhibaatadii ama waxyeeladii ka soo gaadhay magaalada Laascaanood. aad iyo aad ayaan idinku mahadinayaa. waxaan halkan uga jeedaa dhammaan qaybaha kala duwan ee bulshada oo ka soo qayb galay munaasabadan oo isugu jira dhalinyaro, odayaal, waxgarad, raggii officialska ahaa, culimadii, gabdhihii oo qaybaha kala duwan. aad iyo aad ayaan idinku mahadinayaa. shirkuna waa inoo bilaaban doonaa haddii Ilaahay ka dhigo. anigu inaan inoo furo ayaan halkan isu soo taagay. waxaa shirka inoo daadihin doona Maxamed Sheekh haddii Ilaahay ka dhigo. Maxamed Sheekh ku soo dhawo. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Better now, yes. والله يا المقعد محمد شيخ باللي راها آدم ندين سلامية وأنتم هسنتين أجيب ده سو أجيبتين أرنتنا يدا أو قربتك dadka barakacayaasha ay dadka dhibaatada wax ku soo gaadhay run ahaantii waa yandaro in halkan isku imaano dad in aan u gargaarno maanta annagoo xilliga ayada ku jirno hase ahaatee waajibna saaran weeye walaalahayga dhibaatada soo gaartay meel walba ay joogaan u gargaaraan oo ku noolaa Turkiya iyo Syria bal ilaahay dhibaato xun baa gaadhay dad fara badan oo ku baaba'ay waxay ayoo kasbadeen ma ahayn waa masiibo xagga la ka timid islaam baan nahay haddaan usul mid xaq baan usul inaan isku duceyno bal dadka ayaga inta dhimatay Allah u naxariisto inta ay ka tageen samir iimaan Allah ka siiyo inta dhibaataysan dhibaatada ku jirta dhibaatada Allah ka qaado meel walba ay joogaan dadka islaamka Allah u gargaaro dhibaato fara badan baa ka socota adduunyada waa imtixaan la imtixaamaye bal faataha numar ilaahna aqbal faataha mar labaad iyo mar saddexaad ba aad baan idinku mahadcelinayaa ka soo qaybgalkaad ka soo qaybgasheen waxa weeye arrin aad muhiim u ah ummadda walaalahayga dhibaatada gaadhay inaan u gurmano caawa basically Somali baan nahay wiil iyo walaal baan nahay abti eedaan nahay dad isku dhiig baan nahay dad maad u kala socdo ma nihin gacantaada midig iyo bidix mid aad dooranaysa ma laha marka muhiimadeena waxay tahay caawa barnaamijkan uu yahay in aan gargaar taageero ah tabarruc ah aan u fidin dadka dhibaatooyinka soo gaadhay anigu MC baan ahay introduction-ka baa inta ahaa doona Sheekh Cabdullaahi Xaashi فليتفضل شيخ عبد الله حاشي. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين. أما بعد قرأت وحان جوجنا وأدون قفل بنا أدون كان وكتجيا مركب وحان روا رسالة إذا إننا جارسيو
cid walba oo ay kelimadan maqli doona ilaahay caza wajalla qur-aankiisa waxa uu leeyahay wacanat alwujuuhu lilxayi alqayuum waqad khaaba man xamala dulma maalinta qiyaamo marka la tago bini aadamku ilaahay hortiisa imanayaan wujuuhdu ayadoo dulaysan oo kaabo iyo murug ay ka muuqato bay ilaahay hor istaagayaan ilaahay caza wajalla waxa uu leeyahay waqad khaaba man xamala dulma waxaa maalinta qiyaamo hoogay oo ba-ay oo balaayo ku dhacday qofka dulmi xambaara waxaa ceeb ah oo dadkeena dhibaatooyinka ugu badan oo na haysta haddaan ummal muslima nahay qof 80 jira ama 90 sano jira oo isaga oo qabri u sii dhow haddana ku talagalaya inuu dulmi xambaaro oo mushaakilaad xambaaro oo dhib xambaaro oo culays uusan qiyaamaha qaadi karin inuu xambaaro ilaahay caza wajalla wuxuu xarimay inaan isdulmino nabi maxamed sala allahu calayhi waalihi wasalam xadiis abi dar رضي الله تعالى عنه وأرضاه وإمام النووي 40 وكشاغي حديث قدسي كان أها نبي وحو الله صلى الله عليه وسلم يا عبادي إلهي مكورنا يا عبادي الله وحو الله يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا ضدوا ظلمك الضومضة يدو ظلمك نفته إذا حرام بان كردقى إلهي وحمد ظلمي سبحانه وتعالى dhexdiinana xaraam buu ka yahay isdulminina dulmigu si uu ku banaayahay mara dad inta u timaado meel degan inaad tiraahdo xoog baa idinku qabsanaya ama waxaan rabaa idinku sameeynaya saan rabaa idinka yeelayo idinka xoog badnahay waa dulmi bi'aynihi tafsiir kala ma lahan tafsiir kale oo loo bixiyo mare wax kalena ma lahan cidii mujaamalaynaysa ayada u taala laakiin waa dulmi aan geed loogu soo gaban mana banaana qof muslima ina dhiigiisa ku xalaashato xoog aan ku xukumo kuma rabade ma qasaba inay xukunto hadaan ku doonayn ka waran inay xukunto ma rabo marka waa dulmi tafaasiir badan inaan u bixino ma aha marka dulmiga noocaas oo kala ah dadka diinta sheeganaya diinta ilaahay azza wa jalla quraankiisa waxa uu leeyahay wa idha akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab la tubayyinunahu lin-nasi wa la taktumuna waxa waajiba in diintu siday tahay aanu sheegno ma aha inta khusaysa inaan sheega aniga إلهي وحاو ليه يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم عدالتها كتجنينا نفتينا حتى هالنقطة ورهداء وحظ المنا يسوع إن ذلك وحظ المنا يو ظالم باتها كله وصح إن عندنا وحى الله خرب الني أما الله باب الني أما ومدة وهراك سنتي نين ظالم حسك لك الشنيا قف ظالم وجهده بنقرينا وحن كقرينا جلاشنا كقرينا وأنا وحودن كانوا بربريو ووحن سجد ووريجينه ووحن نبعته هويين بدن أو قبلمين عيال بدن ولا أذن ومدين أو بابا يسمعوا البوا ظلمي أنا إسكابني نيوي ظلمي وظلمي هذا الكلام مرهن وحن لو بهاي ذاتك مسلمين تا ولما ذاتك وحجرتك أو إلهي ودي بي ومد هرتاجن أما ذاتك وحشيجيا إن ظلمي كم عابان إنه ظلمي هاي ورما بنانا إلا ظلميو ظلمي هلا جوجيو marka intaasay kalimadda ay noqonaysaa risaaladaan dirayna waxay tahay waxa meesha ka dhacay lascaanood oo dadka masaakiinta loo geystay waa dulmu bi'aynihi waa dulmigi oo qayaxan weeyaan ma aha wax la mujaamaleynayo waxayna u baahan tahay in la istaajiyo dulmiga oo dadka geystay ay ka garamaan ilaahayna ay ka baqaan ummadda ilaahay uga baqaan ba loo baahan yahay ayuha ikhwa inta haddaan inta ku dhameeyo waxaan ilaahay u weydiinayaa dadkii meesha ku dhibaatoobay inuu ilaahay dhibaatada ka qaado ilaahay dhibaatada ka qaado ilaahay dhibaatadii soo gaadhay wanaag ha ugu bedelo kuwoodii barakaca ilaahay guryahooda ha ku soo celiyo kuwoodii dhintay ilaahay ha u naxariisto kuwoodii cayrtoobay ilaahay subxaanahu wa tacaala qaninimo iyo xoolaha siiyo meeshaana waxaa la isugu yimid madasha dadka barakacay in la taageero oo hiil iyo hoo iyo garab istaagba la sameeyo lana garab istaago intaasaan hadalkayga ku soo gabagabeynaya waa la igu gaaday jazaakumullahu khayran sallallahu alayhi wa sallam barak alayhi aad baad u mahadsan tahay sheekh cabdullaahi xaashi waxa weeye inaad taqaanaa ninkani wuxuu ka haray ummad ma joogo dadkiisa waqtigan wuxuu ka haray dad hore u tagay Soomaaliya hore u tagto ka hartay Soomaalida maanta joogto runtii isma sheegto oo waxbay malaasan bal cabdullaahi xaashi khayr allah siiyo sida ay tahay buu kugu dhiibayaa
aad baad u mahadsantahay cabdilaahi xaashi yeerayaa liibaan cilmi axmed fadlan liibaan cilmi axmed soo dhawow السلام عليكم دمانتي وايد السلامي aniga iyo dad kale oo ila socday waxaan ka nimid state kale aad baan ugu faraxsanahay in xafladan idin kala soo qayb galno ugu horeyn hadii aan ka hadalno deegaanka SSC waa meeshii ay xornimada Soomaaliya movement-igeedu ka bilowday maantana dhibaatada ka taagan sida la sheegay hadal badan uma baahna laakiin waa inaan dadka dhibaataysan oo aan aragnay caawino kuna caawino dhaqaale iyo in aan tusno dareenkeena inaan ka soo horjeedno ninka dictator-ka ah oo dhigyacabka ah oo dadka leynaya marka waxaan leeyahay dhammaanteen aan garab istaagno walaalaheen waa mahadsantiin assalaamu calaykum waxaan u yeerayaa haddana nin aad saaxiibkay u ah cawaale faarax oo ah Ken School Board cawaale ku soo dhawow dadkii horeeyay cawaale السلام عليكم ورحمة الله وبركاته marka hore waxaan rabaa inaan u mahadnaqo dadkii mas'uulka ka ahaa inay xafladan soo qaban qaabiyaan oo isugu yimaadeen ummadda intaa tiro la eg oo degan siyaal iyo nawaaxigeed horta inaan nahay inaan la garab taagannahay laascaanood waxay tusaysaa dadka meeshaan jooga oo qofay maanta ka maqan tahay waxa ka dhacay laascaanood u malayn maayo inuu meeshaan fadhiyo taasna waxaa horta alxamdulillah ah in ay jirto social media ayaa noo saamaxay inaan anagu halkaan joogna ka warqabno wax kasta oo ka socdo waddankeena waxa ka dhacay laascaanood waa crime against humanity waxaana mas'uul ka ah ninka hadda madaxda ka ah gobolkan la yiraahdo Somaliland ninkaas waa ognahay inuu ku talagalay inuu waxa sameeyo marka caaw waxaan rabaa fariin aan u faro dadka mas'uuliyiinta ah ee ka ah dawladda Somaliland haddaydan ka hadlin waxa ka jira laascaanood maanta birita idinka saari mayso annagu ma hadli karin oo dawladda na af jartay idinka saari mayso waanu ognahay waana idinka warqabnaa qaarkiin inaad haysataan baasaboorro Maraykana iyo baasaboorro Ingiriis sharciga ma dhamaanayo ilaa 30 sano haday ka soo wareegto maanta dadka halkaas aan ka aragnay oo aan ognahay qaarkood inayba u dhiman doonaan xabad ku dhacday oo hadda dhaawaca qof walba waa xisaabsan yahay naftiisa waxaan rabaa inaan kaloo yiraahdo kulliba waad ogtihiin dhibaatooyinka jira waana ka warqabtaan waana aragteen hadeertaan fadlan haddaan nahay dadka siyaal iyo nawaaxigeeda degan hiil iyo hoob aan tusno dadka laascaanood inaan maanta garabkooda taagannahay wixii aad bixin lahayd oo kusoo tala gashay fadlan laba jibaar sababtoo ah dadkaan aragnay oo meeshii hadeertaan masuurkeeda nala tusay iyo social media baan ku aragnay oo shalay guryahoodii jiifay
oo aanan wax dhibaato arag maantana la biyo ay cabaan xataa wax kale iska daay waxay nooga baahan yihiin maanta inoo baahan yihiin berito noo baahan waad mahadsantihiin hadalka ma rabo inaan kusii dheeraado waxay tiraahdaa Soomaaliga xoogaa iga dhumay nimaad maxay ahayd fadhigiisa u jeed sarjoog lama yiraahdo marka gacanta hal furo waa mahadsantihiin عوالة فرح عادي هذا بدو ما تصنتهاي in fact فرين هذا علوس بقدري أو حود دري ضدك معمول كسومال لان كتيرة أو ليه هاي إذن كه هذا شو إن كان دوم وطه وحنا دعية نباتة كل عايز ما دو جوجو جواه إن الله كقبستان هدو تيجي كسر ميسو وافرين هذا علوس رونهانتي وافرين هذا علوس أو هدي أي نجوه مقليان أو لوبا هاي إني مقلان وحاصل لياب له أو سوشيال ميديا ما دام عوالو وشغدوني ننطبق له إسلام بجرتي فوري من السوشيال ميديا كهذا يسوق تري حدي برعو محل يراهيتو لاس عنود وين بربرونينا متكون أكثر من نسينا السوشيال ميديا كتلا إيه سؤال شو واحد حداد اسمه بربرسي ده كل ما لم يصون ولا يكسر آدمي وحلو به عقل جاي وشقيه عاطفة iyo wax aan meel ku gaarsiinin macquul maaha hadalka tireen meel walba yaala maanta anagoo siyaaro joogna kelmadda ay ku hadashay aduuna buu gaaray bal ilaahay uu ku dhaarshay qof 98 jir ah oo leh intaan dudumino laasaanood ayaan mid ka fiican dhisayna bal aqliga baad wax tari kara anyway waqtiga sheegi doona qof walba wuxuu qalabsaday waa qoran tahay waxa ilaahay mahad soo sheegay meel walba yaalo waxaan idin sheegayaa sheekheena sheekh balad sheekh Axmed Nuur sheekhiisa kale sheekh Axmed Nuur kale ayaa noo yimid ayaguna marti nuur gaasna way noo sheegay odayaas waa caawa siyaara lama kala maqnaa ilaahay baa mahad iskale aad baad u bahsantihiin haddana waxaan u yeelay Muuse Dugsiye tafadal Muuse Dugsiye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته walaalaha rag iyo dumar culimo mutacalimiin caruur iyo ciyaal dhammaantiin waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب سلام كدب عاو halkan uma animan khudbad uma animan xaflad waxaan u imiday walaalaha reer Laascaanood gobolka Sool dhibaatada ka dhacday genocide ka dhacay umusha iyo aabaha iyo caruurta la qaxiyay inaan u tacsiyadeeyo marka hore waxaan ilaahay uga baryayaa intii dhimatay inuu jannatul firdaws ka waraabiyo intii dhaawacantayna inuu ilaahay u boogadhayo inta ku barakacday ee geedka hoostiisa iyo bohosha dhexdeeda maanta kaga gabanaya suuga iyo noocyada artillerygana waxaan ilaahay uga rajaynayaa inuu ilaahay ka badbaadiyo inta kadib walaalaha ummadda Soomaalida caawa halkaas ugu timiday waxaan rabaa inaan halkan si cad idinku sheego arinta maanta ka jirta Laascaanood way soo habsaantay laakiin waxay ahayd mid miiska saaran waxay ahayd kuwa ku talagal ah oo ninka maanta dadka ku leynaya Laascaanood oo ugu talagalay mar ay noqotaba inuu sidaa u galo haddaanay sidaas jiri lahayn oo miiska u oolin waxa dhacaya maanta ma dhaceen 30 sano oo Soomaaliya burbursanayd waxay ku talamayeen ima inay dawlad helaan ama inay dadka laayaan maanta waxa Laascaanood ka jira waa wixii huursanaa waxa weeyaan jeebka ku haystay ay Muuse la soo baxay taariikhda haddaan dib ugu yar laabto dhibaatooyinka gobolka hadda la isku yiraahdo Somaliland ee ahaan jiray waqooyiga Soomaaliya waxay ka soo bilaabantay
maanta waa February 12 February 4 waxay ahayd 2091 ama 1991 maalintii ay wadanka soo galeen ay Boorama soo galeen waxay ku laayeen maati culimo hooyooyin iyo cid kasta ayay waxa weeyaan suuga maanta lala dhacay laascaanood ku ka weyn ayaa la dhacay Boorama kuwa maanta suuga la dhacaya laascaanood waxay ahaayeen nimankii markay xukunka doonayeen dad dariiq socda oo intay safar soo galeen waxoogii sita oo baabuurtoodii wata intay u dhaxda u galeen ku gowracay kala bayriyo Boorama meesha u dhaxaysa ninka maanta ciidamada Soomaaliland haysta ee la yiraahdo Nuux Taani wuxuu ahaa ninkii meydadkooga keenay ee la yiri dadkii dilay mee uu yiri waxa raalli ku noqday inaan meydkooga idin keenay waxa taa xigtay meesha la yiraahdo Seemaal ciidamada uu isagu maamulo intuu u diray in dad habeen iska hurda lagu gowracay oo aroortii loo soo toosay reeradhan oo wada gowracan oo cid dishanaan la garanay 7 cisho ka hor waxaad ogtiin magaalada Boorame waxa iskugu timid dhalinyar dadkii aabayaashood la dilay ee waalidiintoodii lagu laayay Boorame ayaa waxay yiraahdeen waalidkayagii dulmigii loo geystay dilkii loo geystay waanu saamaxnay laakiin waan u ducaynaynaa waxay doonayeen intay iskugu yimaadaan meel inay u duceeyaan waxa la yidhi ma ducayn kartaan dabadeedna waa la weeraro waa la xirxiray boolis baa weeraray arrinta Soomaaliland ka socota ama waqooyiga Soomaaliya ka socda waa dulmigii oo buuxsamay ayaa maanta daadaadanaya walaalaha Soomaaliyeed halkan jooga caawa uma iman inaan khudbad dheer iraahdo waxaan rabaa marka hooyooyinkaasi duurka ku jira maanta kuwa dhaawac maanta waxa weeyaan isbitaaladoodii la gubay kuwa masaajidadoodii la gubay kuwa ka qaxay magaaladii Laascaanood iyo guryahoogii intoo bam lala dhacay dibadda ka jeefa inaan maanta wax u qabanno oo nin waliba waxa weeyaan maanta haddaad inteenaasi waxaan ka nimidnay talaagada buuxa waxaan ka nimidnay guryo nadiifa ninka maanka duurka jooga ee gurigiisii bam lala dhacay een maanta waxba haysan imagine inuu adigoo kale yahay waxaad ogaataa in Ilaahay isu keen eegayo oo aanu de kuwaasi waxa weyn si gaara waxaas ugu sameeyay la isu keen eegaya marka walaalaha Soomaaliyeed waxaan caawa si naxariis loogu codsanayaa inaan dadka wax u qabanno inaan wixii u baahan yihiin intii karaankeenna aan wax ka qabanno anigoo fursad ka faa'iideysanaya waxaan fariin u dirayaa gobolkii Awdal oo ah gobolka aan ka soo jeedo waxaan maqlayaa social media iyo waxyaabo badan baa waxaan ka arkayaa oo laga sheegayaa in dadkii Soomaaliyeed intii Laascaanood ka qaxday maahin intii kale la cabsi geliyay oo ay ka qaxayaan waan ka xumahay inay Boorama maanta cid ka qaxdo waxaan qabaa anigu oo ummadda Soomaaliyeedna qabtaa magaalada Boorama in magaalo nabadeed tahay inay tahay meel Soomaali kulmisay inay tahay maanta meel lagu nastay waxa lagu nasaa meel nabada waxaan qabnaa inay tahay meel lagu naso nabada waxay bartaan iskuuladii waxay bartaan jaamacadihii inay dadkaasi ka qaxaan laba sababood ayaan u malaynayaa inay sababtay social media oo inta badan dad wax ma garatay ay gacanta ku hayaan oo lumiyay wixii ay Boorama
xaqa u lahayd iyo wixii ay dadka boorama degani ay xaqa u lahaayeen ba intay been ka sheegeen geliyay waxaanay xaq u lahayn oo been ka sheegeen taasi waxaan leeyahay dadka reer boorame dadka walaalihiina ee idin la degan waxaan qabaa inaanay jirin laakiin hadiiba ay jirto dadkaasi kama lihidin boorame hadda ganaadaan ha noolaadaan haddaad idinku noolaataan ha idinla noolaadaan haddaad dhimataanna waa dhimateen message-ka waxaan u dirayaa dadka reer boorame ee dadka qaqaxaya waxaan leeyahay kolley ismalihi wax dhibihi kolkoon hoos u waraystay way jirtaa laakiin magaaladu waa magaaladiinii cidi idinkama xigto istajiya inta reer sool iyo ummadda Soomaaliyeed dhammaanteedna waxaan idin leeyahay aad baan idin salaamayaa salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu raggiibaa batay marka waa inaan dhinaca gabdhaha u leexanaa inkastoo nagula eedeyn doono waa na garab bixiseen waxaan u yeerayaa Xamdi Cabdulle السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان مروينك يا مدنياشا عاود شوقة وهل كان السوي وحانكو سلام يا سلامة إسلامك وحنا إلى إذا كجرت شيء إماتين كان السوي تمادين هل كان إنه نقد مد وحترة ووحي اللي يسوي مد كجواب كينا أنا بدي مسؤول دوي يوم لحظة الصومالي ده وهل كان تماده ما نتشعلي رنتار يدين شيء جاه نين إسلوريجا ولا عكر هذين هي مصي يلعق نين واحد متراء ولا عكر هذين هي وضدك كلا ترى هي مصي لعق ما نتشعلي إن قاعدة على مدى يركاه عيد كبدنا ومير البياعية لكن عاو تاسعي حرن نلكو إنه يقبنا يما كان سفي عني يقبوه فرس كاس يعلن كا يبلوجا ويحرن يعاو سبب تيجو حرن هنا ما ها قبيالد حق دردا النبع هاي وحن نبع هاي بني آدم كظلمية وحن نبع هاي بني آدم كشيكتا إن دبات إسقى قاعدي لكن أقول إنه إسقى دبات جيستو waxaanan qaadan karin in golihii sayid maxamed iyo darwiishta loo maleeyo dudumo lagu dheeldheeli karo dadka Soomaalida ah dhamaantood waa jecelahay waa walaalahay hadalladii gabadhii la oran jiray Saada Cali waxa kamid ahaa walaalahay anaa wada jecel anigu heeskii ma garanayo laakiin waqooyi anaa dago walaalahay anaa wada jecel bay dhihi jirtay Allah yarxamha waa dhab hadalkaasi waxaan maqlayay wax badan iyadoo la leeyahay musabbiixi laakiin anigu waxaan aaminsanahay guuxan hadda aynu maqlayno inuu dagaalka dhaliyay inuu yahay wax soo socday oo yani waqtigiisii qaatay hadda ninkii asagu markaa aan u diyaarahayn wax soo socdayna dee aqli xun yahay kollayba laakiin waxaan leeyahay ummadda Soomaaliyeed dhamaanteed khaladka ka dhaadhacsan oo ah calamadan tirada badan iyo qaybta iyo kanaan reer hebel iyo anaa goostay bini aadanku دينك إسلام كنا وشيء واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إلهي حرقي سقبصة أو هكذا إننا ليري سومالي وين هدات كجوده أو أدنى لقى جو هدي ما جويد بقى جويد كخير بدن قضية خاتمه قضية نينك فرس كسارن وقضية سوماليات وقضية سومالي وين نينكي كان نحلها يا نينكي كفر حلها نينكا أسقو سقاشن شره أنا ما شيء ضمي سبيح نينكا لا نشيء فضلا وقاده
waayo Muuse Biixi keligii ma aha ظالمين باكل مانسن ظالمين تكل مانسن من baa loo yaqaanaa qaar baa 80 kor dhaafay qaar baa macallimiin noo ahaa anaga qaar baa aqliga iyo maskaxdaba ka liita oo dib uga dhacsan han maqlayaa Muuse Biixi nin kaliya weeye dhibaato gaar ah oo isaga ku gaara madaxweyne u yahayna ma jirto dad badan baa la shaqeeyo oo Soomaali ah dad badan oo ka xunna waa jiraan oo waa aragnay oo habeenaya maalin leh arintaasi waa qaldanta dad ku taageersanna waa jiraan kuwa marka in Ilaahay soo hanuuniyo ayaan ugu duceynayaa waxaan leeyahay Soomaaliya ha noolaato khaatimo ha noolaato calanka iilula calanka hala lulo waa markii iigu horeysay oo aan meel ka istaagayo aan leeyahay calan hala lulo calanka waliba gaarka ah marka walaalayaal kal iyo laaba waxaan idin weydiinayaa taageera dadka dhaawaca ah taageera dadka liita taageera dadka masaakiinta ah taageera dadka loo xoog sheegtay taageera caruurta taageera waayeelka taageera miskiinka taageera wiilka dhalinta yar taageera wiilka dhalinta yar oo mustaqbalkiisu yahay inuu suuqa taagnaado 30 sano suuqa taagnaado nolol buu u baahan yahay sharaf buu u baahan yahay dadnimo u baahan yahay wuxuu jecel yahay u baahan yahay waana arkayaa yes waa la dhimanayaa waana la dhintaa gobonimadana waa loo dhintaa noloshana waa looga dhintaa dulligana waa laga dhiidhiyaa Soomaaliya ha noolaato khaatimo ha noolaato cadawga Soomaaliya asaga is og ha jabo kan kala gooya ha jabo kan isku dira ha jabo waxaan u jeedaa iftiin dheer oo soo socda oo awalkiisii uu bilowday dhiiga maanta daadanaya waa dhiig nimaan dhulkiisa u daadani dhulaan dhul ku daadani horumarna ma gaaro mana noolaado marka mid dhiiga lagugu dulmiya oo lagugu daadiyo oo lagu shubo oo lugta laga jabiyo gacanta laga jabiyo guul baa ka dambaysa hal dulqaato anigu waxaan ku hadlayaa magacayga anigoo ah Xamdi Sheekh Maxamed Cabdilla Horeeye magaalada Gaalkacyo ku dhashay wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh aad baad u mahadsantahay maama Xamdi waad maqlaysaan iminkana waxaan u yeeranay xildhibaankeenii council memberkeenii Maxamed Cigaal Xaaji Maxamed Cigaal soo dhawow Cigaal السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدن يمروين waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka ah oo mid ugu qiimo badan salaamo alaykum salaamo waxaan islaha cawaalaad ku xigi doontaa laakiin xamdi hadii lagu xigtiyay arintu way adkaanaysaa ma baahint laakiin aniga laftayda Gaalkacyaan ka yimido ya aad horta intiina aan aqoon aniga waxa la yiraahdaa Maxamed Cali Cigaal odayaasha magaaladan ka mid ahay 12 sano magaaladan deganaa beri dhaweyd baa waxa la iga doortay magaaladan inaan council member aan ka noqdo magaalada joogtaan waa magaaladeedii markuu soo dhawaada waxaan rabaa inaan idin sheego xaqiiqiyan ma jiro wax ka fiican oo aan caawa halkaan isku nimaadno inaanu u heelino dadka aanu ka nimid oo hilka caawa nooga baahan waa xaqiiqiyan weeye waxa la yiri fulayga ilaahay uma naxariisto ninka aan wax bixin iyo gabadha aan wax bixinna waa laga fiican yahay maantay haddii aad damiir leedahay oo in yar oo Soomaalinimo aniga xogaa qabiilna way wada waa iska okay waa iska caadi taas in yar oo islaamnimo iyo taas yar oo ku wada haddii kugu jidho oo aadan helin runtii de qof iska nool oo iska soo kacay baad microphone-ka waxaan u qabsaday inaan meesha ku soo dhaweeyo waxaan rabaa dhowr arrimood inaan ka hadlo waana fududeynaya insha Allah horta waxaan uga mahadnaqayaa dhalinyaradii iyo mas'uuliyiintii xafladan quruxda badan la soo qabanqaabiyay
intaanoo qof oo reer siyaatala oo meel iskugu timid weligay ma arag ma baanta marka horta waa mahadsantihiin inaad ka soo qayb gashaan laakiin tiradiinu macna ma samaynayso haddaan lacagtii aan la bixin waxba macnaa ma leh marka arrintaas uu isku dadaalinayaa arrinta ugu horeysa aan ka waxaynayo waxaa weeyaan maxaanu halkaan u nimid caawa maxaa laascaano ka dhacay maxay arrintani ku timid laascaano ninba wuxuu kuu sheegayaa anigu laakiin waxaan u arkaa inay tahay xaq iyo baadil baa isku haya ilaa nabi aadan markii bini aadamka ilaahay abuuray mar walboo la isqabto laba wax baa jira xaq iyo baadil meel u dhaxaysa ma jiro madaxweyne xasan sheekh baan arkay oo leh idinkuna gar baa leedahay idinkuna gar baa leedahay adiguna gar baa leedahay dee gar meeshaan ma taalo xaq iyo baadil xaqa waxa weeyaan garaadyadii iyo isimadii iyo dadka halkaa deganaa oo intay isu tageen oo tashadeen oo yiri walaal isku daalay horta xaqaa aan wada hadal leh oo xabada lagu bilaabay kuwaas waa xaq ninka xabada ku bilaabana waa xaq daro wuxuu yiri madaxweyne muuse aragixaysanaa arrintii adduunka oo dhan bay gashay White House-ka St James baan u geynay nimankii ingiriiska iyo Jarmalka Faransiiska fadhiyo waxay yiraahdeen war soo kani garaa jaamac maahan jaamacada halkaan uga baxay oo arbay ka soo garaa horta ninka la yiraahdo waxa isku soo doodeen iyo waxa laga hadlayo waxa ka jiraan waxa weeye meeshaan dadweynihii iyo mas'uuliyiintii iyo madaxdii SSC oo raba ayagu inay aayahooga ka tashadaan ilaa hadda ma ogin meesha aayahooga la aadi doonaan waayo ayaga xorwa ma fahant iyo xukun baadil ah oo xoog iyo kaa dheeri iyo kaa xoog badni iyo kursi ma fahant baa meeshaas ayaa marka waxaan rabnaa inaan u sheegno madaxweyne muuse arrintaas way kaa maaragtay sirgaxatay waxbaana kama jiraan annaga marka waxaa waajib ah inaan dadka aan u helino waxaan kaloo aan u tirayaa madaxweynaha iyo dowladda Somaliland fariin dagaal walba oo adduunka ka dhacay nabad baa ka dambaysa miiska la isku yimaada muuse marka kolay miiska imaanaysa la sacamar iyo jijibinaysa mana qabsanaysa arrinta ku sheegaya marka ma waxaa rabtaa adoo 300 oo wiil dilay labada dhinacba miyaa rabtaa inaad miiska soo fariisatay mise waxaa rabtaa beri subax shalay been baad noo sheegto xataa xabad joojin baa sameynaya ma sameyn oo googna aroortii 5 the boring baa waxay nin walba waxa la yiraahdo social media iyo iPhone baa la wataa 5 bay xabadu bilaabatay habeen horena dawladda waxay sheegtay inay sameynayso waxa la yiraahdo xabad joojin taa laga ma aqbalayo tumo brito marka waa ku bari ciidanka oo ka joogo ma fahant marka halka ciidanka ay geysid waa la wada hadlayaa waxayna ku dhamaanaysaa wixii ay dadkaas ay maaragtaa mustaqbalkooda iyo ay dantooda ka arkaan adiguna ma fahant waxa laga yaabaa in aad markaas aad eed iyo dambi international community ma dhici karo inta shaati dawladda u soo gelisid dad inaa xasuuqdin waxaad shalay ka diidaysay weeye 30 sano ka hor muuse hawd ku galay 30 sano ka hor hawd ku galay wuxuu yiri dawladnimo la isticmaalayaa maanta kuwa jooga laascaanana saasi diiday wuxuu diiday shalayto bay diidan yihiin Soomaalidu waxay ku mahmaadaa ninka sinaantaada diida sareentiisa la diida intaas bay diidayaan aad iyo aad baan salaamayaa biliis qof walba caawa halka jooga waxa noo balana ninkii kun heli kara kun inuu bixiyo ninkii 5 kun heli kara 5 kun inuu bixiyo ninkii 200 heli kara 200 inuu bixiyo wiilashaas dagaalka ku jira daawadooda iyo saadkooga ma fahant in aanay ka walwalin oo ay ka walwalaan siday dhulkooda u xareysan lahaayeen si ay sharaf iyo cis ay ugu noolaan lahaayeen wadankooda salaamu calaykum raxmatullaahi wa barakaatuh wa calaykum assalaam council member cigaal Sheikh Hussein soo dhawaad tafadhal Sheikh Hussein السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحيران اسم قلو إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته غر الميامين. إخوتي الأعزاء مركوها الرئيسة وحان تعسيو درينا
dadka muslimiinta ah ee ku waxyeeloobay labada musiibe labadii maartay wiigagii u dambeeyay ugu hadalhaynta badnayd midi waa musiibadii dabeeciga ahayd ee ku dhufatay dalka Turkiga iyo waqooyiga Suuriya labada meelood waxaa ka dhacay kaarisa ama dhib aad u weyn oo dabeeci ah oon cidna lagu canaananayn akthar inta hadda dee meydka la arkay inta la laayahay kolkii laga reebo waxaa dhintay 30,000 oo qof wax ka badan dhaawaca xadith walaa xaraj magaalooyinka biakmaliha rogmaday xadith walaa xaraj marka ilaahay subxaanahu wa tacaala ha uga booqadhayo muslimiintuna intaaba isku leeyihiin wixii gacan ka geysan karana ha ka geysto wixii u ducayn karana ha u duceeyo taasi waa mid weyn midna waa midda innaga caawa meeshan isugu keentay oo ah dhibaatada ka dhacday dadkeennii ku dhacday ee dhulkii aan ka nimid ku dhacday waayo hadday dhibaata hadda laascaana ku dhacday waan hubaa oo shaki igama jiro laga soo bilaabo maarta meesha la yiraahdo Raskamboni ilaa Laas Casayr inta u dhaxaysa dadkii ku waxyeeloobay laascaano guri aan looga ooyeynin kuma jiro igama jiro wax shaki sababtoo ah kan meesha ku dhintay ama habaryartii baa degan ama eedadii baa degan ama abtigii baa degan ama inaabtigii baa degan ama habaryartii baa degan marka waa musiibo weyn marka dhibaatada iyada ah waliba meel astaan gaar ah noole ayay ka dhacaysaa Mahathir Gandhi ninkii la yiraahdo maartay si buudiga iska ahaa labada go xidhan jiray ayaa hadal cajiiba buu yiri hadalka xitaa inay waa dadkeenu iyo dadkeena wax bartay siyaasigii way ku baraarugi laayihiin wuxuu yiri laba malay fiirada u fiirsada hadalkaas laba malay badda salkeeda 10 kilomitir hadday isku qabsadaan khilaafkooda Ingiriis baa ka dambeeyay ogaada buuri khilaafkooda Ingiriis baa ka dambeeyay markaas uu qof hadda wax garad sheeganaya oo maaragtay sheeganaya inuu wax maaragtay bartay ayaa isu soo taagay oo wuxuu oranayaa boodar meel hebla la yiraahdo leena war kuwan jiraanu ilaahay subhanahu wa ta'ala hadaanu awood leenahay iska qaadi lahayn الحدود الإجرامية حدودا جرتاي وإجرام وي لكن قفكاس كبر أروي لا يهي كي هروال بابيي أبيال كان بابيي أو يال كان بابيي كام حاضر ما يسوي إذا يحضر ما يسنا يساكي إنجليز كأنه يسكو كادر كتجي كل كلا هاي ودن حدود له أو كلا قام بعنا عقل الشقين يا ما تاسي مركا وين يتالقوا برارو سنادو مدة كله وحا الله شيء ومارتي وعلى يرعيني لكن وحا إنه يرسي يروا وحا ليلة هذا مسؤولية
قرآن كان كل كان فيرينه عد كلية دنبغا قادن مايو نعم نينكا ليلا مارتب آد لو مقعدبايا ماشا head of state كيه مسؤولية دوغو وين وي لكن كابينت كيس إيا سيستم كا وحكم مامورة هايو وح الله وحي وناغانا ويلاليهين وحي خالدنا ويلاليهين kolkii laga soo daadago ee shacabka loo yimaadana wixii wanaagana shacabku uu la leeyahay wixii khaladana uu la leeyahay maxaa u daliila quraanka ilaahay baa u daliila ilaahay wuxuu yiri subhanahu wa ta'ala u fiirso inna fir'auna wa haamana wa junudahuma كانوا خاطئين مدحوينه ووينا وادنبيله كابنيتكنا وادنبيله أسكرتا أوردرك خلط كقادريسانا وادنبيله يالوي marka waxaan leenahay waxa waa laga baaqsan karaa fariintaan u dirayna waxa weey alwiqaayatu khayrun min alcilaaj ما هاي إنه يسوون ما نضد قحية إنه هذا تأكلنا وحي إنه يسوون ما إنه مدارس ودسنه إنه مارت إسكولا ودسنه إنه يو غريو هذا يكجرة وهذا بحال كأنه وهذا مر تاجن أيها وحيد ماشى أنا كنت تاجن بالبوش كفيري قار ما إنه حاجين جرني وحنا غريو وحنا كويري وحنا هنا عقلية ما أنت islaanta yaayada gadanaysa dirgaday dhisatay BM raashka lagu soo sameeyay ku garaacaysa aqliyadeenu taaway xageen gaarayna marka walaalayaal dibku inagu dhacay in inaga mid aan sameynaysa meel kastaba aan iska taagno shacabka iyo waxgaradkana inay kacaan oo arinta wax ka qabtaan baa loo baahan yahay إلهي وحيد هذا أرنت سمين ويان فاستخف قومه فاطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. period. وحرت أرنت علماء وحجرتك قبلها تذكر وحبرتها اللي يرضى وحال الربائن مد نقدان stop جوج وحن جوجية وحبا النوتر مايس مركب فرين تاسانو درينا معها قفنا عيب معها وحلا يدا هذا مارتي قبيالة يرهر يوحس معها ظلمي جوا ظلمي سو هل كان مارتي شيء عبد الله كشيء ظلمي جوا ظلمي مركا هل شيء باي هري هل كشيء هري وحوي إناد سي لجوا الدواجي إنه بحنه وماشي أستانتا إنه هاي ودراويش والسيد محمد عبد الله حسن يا إسماعيل ميري ماشي أي كسو مارتي دقالك كبلابين وي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dadkii aad baa noo soo ajiibay caawa bal ragii muddo noo socdayna bal dhinaca gabdhaha u leexano cadar oo mane soo dhawo cadar oo mane السلام عليكم وعيد السلام يا دمان dadka ka soo qayb galay taageerada la sacaano dagaalka laaskiyo inta daafaha u dhow dagaalka laaskiyo inta daafaha u dhow hubiyo daaran dooriyo daaduf baa ka dhacay shicibkii qaar baa dareero dabahay shawaaran kuwa laga duumiyaho hawdkay ku hoos jireen kuwa laga duumiyaho hoygay ku hoos jireen dulan cad bayaa loon loo bahayn daliil dabiibka halkahay ka helahayeen dabaha qabsaday darasaas daaran dooriyaha daaqadaha ka gaalay qutul daruuriga dirqaha maanta lagu helaa
dugsiga diintiyo masjidkii warkoobada miyahan iska dahaawanaa waa su'aal da'weyn miyahan iska dahaawanaa waa su'aal da'weyn inaga doorkeenu waa dollar inaan hurnaa dugsiya u samahayno hoy diirimaad helaan oo daawo iyo caafimaad siina goor degdega oon ducada u hibahayno inay meel saxaale degaan nin walba meeshuu degaa dayman ugaba waacan nin walba meeshuu degaa dayman ugaba waacan walaalle manduulino daana kuguma waado dariis walaala iyo dadiis lamaba haynu nahay duqaayimaha mahatadahan daawa noqonahayn dirqiina kama yeelayoon oo damiin maniin dirqiina ma yeelayoon damiin maniin darisku ayna iska dahayaan damaacigan waxaad shalay diidanahayd muuse hay guday shalay waxaad diidanahayd muuse hay guday shalay waxaad diidanahayd muuse hay guday damaaci waxaan galahayu dadkani ku maaran waxaan naga dahadagahayu dadkani ku maaran durbaanka haddaa tunteen daansigahan wadnaa durbaanka haddaa tunteen daansigahan wadnaa diriir hadday noqoto waa reeran lagu degdegin diriir hadday noqoto waa reeran lagu degdegin daraawiishiyo waxaa jooga daraawiishiyo waxaa jooga danabyo culus waa koofi nimankii dubto gaalka dabada jaaray waa koofi nimankii dubto gaalka dabada jaaray dabiyo hoolac weeye iyo diiradahan jabay dabiyo hoolac weeye iyo diiradahan jabay intaan dukundaha kuniyo daydayahay ka dhicin intaan dukunda kuniyo daydayahay ka dhicin hadeer dib u joogsado dayrka nooga baaxa hadeer dib u joogsado dayrka nooga baaxa nin walba caalankii u doonayo haba dugsado daraawiishtiyo raggaan duubcas wadaalaho daraawiishtiyo raggaan duubcas wadaalaho waryaa dib u tahaatiyo doorar idinka badan waryaa dib u taatiyo doorar idinka badan waryaa dib lumahasiyo inka badan digri waryaa masiyo inka badan digri haddaa daariskiisdiiden dantiina gaala haddaa daariskiisdiiden dantiina gaala soomaalida duuban iyo daafiina daaya soomaalida duuban iyo daafiina daaya nin walba dagaalkiisibuu diilin waayn ku qoray nin walba dagaalkiisibuu diilin waayn ku qoray nin walba caalan dohog lagu daanta saare ka suuray nin walba caalan dog lagu daanta saare ka suuray anaa dowladaha yirihiyo dastuurka gaalay anaa dowladaha yirihiyo dastuurka
dastuurka gaalay idinna doorkiini weeye durbaanka tuuma idinna doorkiini weeye durbaanka tuuma hadeer madaxweyne doorto u saara duub hadeer madaxweyne doorto u saara duub waxay dowladii lahayd iyo dastuurka qora waxay dowladii lahayd iyo dastuurka qora oo daraawiishiyo baxaad oo daraawiishiyo la baxaad dubcaskii gilgiilay السلام عليكم عليكم ورحمة الله وبركاته دمان برشادة اسكوكو تميد مدشاني وان سلاميا وحنا نقوم مهدنا قيا داد كاني دمان هالكان اسكوكو يمي وجددي اي اسكوكو يمادين oo dadkii ka barakacay laascaanood in wax loo qabto hadafkaas ayaa meesha la iskugu yimi marka hadafkaas inaan xoojino weeyaan oo muraadkii la iskugu yimi meeshan masiiba taagan masiibadana caadifad iyo qabiil laguma xalin karo waa in aqli lala yimaada oo aqli lagu xaliyaa haddaan shakhsiyan eega aniga dhibaatooyinka hadda jira waxa weeyaan ta ugu horeysa inaan tacsiyeyno dadkii dhammaan ku geeriyooday goobaha laascaanood iyo agagaarkeega taasi waa qodobka ugu horeeya qodobka labaad ee ku xigina waxa weeye inuuna qof dambe goobta ku dhiman ee la isku dayo si wada jir ah in loo joojiyo dagaalka socda in la joojiyo uuna qof dambe dhiman waxa kale oo ku xiga markaa in laga shaqeeyo sidii wax loogu qaban lahaa dadka ku barakacay laascaanood aniga muraadkaygu weyn ee meeshani keenay waxa weeyaan dadka sidii wax loo tari lahaa maadaama aan ka mid ahaa dadkii ka soo barakacay xamar ee dagaalkii xamar ugu dhacay oo garan kara dhibta iyo kadeedka qabsan kara qof dhib ay ka soo gaadhay dagaal marka waxaan jecelahay inaan murtida xoojino oo aan taageerada culayskayga iskugu geyno ta ugu dambaysa codsi baan ugu dirayaa maamulka Somaliland gaar ahaan madaxweynaha Somaliland oo anigu shakhsiyan aan aqoon gaar ah u leenahay oo 4 sano aan isku kalaasahayn waxaan ka codsanayaa in geed hoose iyo geed saraba uu fuulo in arinta la damiyo uuna qof dambe ku dhiman laascaanood waad mahadsantihiin salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أدبر أمها سنتهاي هاوشي أنا نمد عاوة وحي هيد قرمتك دتك بركعي دتك كوبا باي ماشا يدوين تودا رونهانتي فضيلة الشيخ أحمد نور وقت جيسة لسوقاري الشيخ أحمد نور سودوا وشيخ البلد هاوش هذه هذا يتاجنتها عاوة وحوين بلغا في الشيخ أحمد نور دتك عجين واكون وكو ديار جاهز بكويهن الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحير هالسليست هذا كان هلا يريو وحن ربعنا وحير مركور إذن لو ذاقو محمد خير الله سي محمد الشيخ با كلمة قدام بيسي ummaddu horta culimada markii la yiraahdo culimadu xuduud ma leh kaliban shalay duubay dadka hadlaya baa arkay oo dhahaya shanta Soomaaliya haagay jirtaa marka shantii Soomaaliya anagu rumaysanahay wax ka sokeeyo ma aaminsanin
xamdi baan ku raacsanahay calamada yaryarka ma aaminsanin calanka weyn baan aaminsanahay Soomaaliya waa Soomaaliya Soomaaliya wahdadeeda iyo midnimadeeda iyo walaaltinimada ayay culimadu meel joogaan bala jiraan waxaan rabaa inaan wax yar idin xusuusiyo idinkuna markhaati aad ka tihiin dadka Soomaaliyeed meel ay joogaanba waxaan habeen iyo maalin diyaar u nahay meeshii joogaanba inaan ku caawino gurmadka caawa aan u fadhino kii ku xigay u dambeeyay xageen u ururinay magaaladeena Hargeysa u ururinay suuqii weynaayo waaheen gubtay ma lacagta u ururinay lacagta ugu badan inta Seattle joogay markaas aynu dirnay kii ka sii horeeyay waxaan u ururinay Ethiopia iyo dadkii abaartii ka jirtay 250 baan qaadnay annaga masaajidda lacagtii aan ururinay kii ka sii horeeyay wuxuu ahaa kii Zoobi iyo wixii Muqdisho ka dhacay beledweyne iyo daadadkii ka dhacay Gaarisa iyo dhibaatadii ka dhacday habeen walba waxaan ka shirnaa shanta Soomaaliya meesha Djibouti waxaan u ururinay waa dhexdeer iyada daadadkii ka dhacay baan u ururinay marka dadkeena iyo shacabkeenu meel ay joogaan waa dadkeena waxa waajibna u amarka maalinba meesha goomoon ayaan la jirnaa ee culimadu haddaan idhi male xuduud waxay la jiraan wahdada iyo midnimada Soomaaliya ayaan aaminsanahay wax ka yarnayna ma qanciyo haddaba sidaas daraaddeed walaalaha laascaanood iyo meesha hadda ay ka dhacayso hawshu runtii qadiyadeedu waa qadiyad weyn waa qadiyad ramsi iyo calaamad u ah isku xidhka Soomaaliya isku xidhka Soomaaliya waxaa calaamad u ah goboladaas calaamad u ah marka sidaas daraaddeed qofka bini aadamka Ilaahay markuu abuuray uu dhashay isagoo xor abu dhashay oo qaylinayo ooyo waa xor way marka qofku in xorriyadiisa uu helo isagu uu tashado go'aankiisa gaadho waa qadiyad diini ah oo wanaagsan weeyaan shalay culimada Soomaaliyeed wada aragteen kulli khudbooyinkii meel walbo la joogo waa laga qayliyay masajiya rasaa'ilna waa wada dirnay fariimooyin culusna waa la diray waxaan rajaynayaa in culimada iyo hadalkooda loo joogsado oo dhiigga qubanaya la joojiyo oo wiil dambe iyo gabar dambe aynay nooga dhimanin dagaal waxaan rabaa inaan idinla wadaago arrinta ku saabsan caawa maxaan isugu nimid markii laga taga Maxamuud Iimaan Khayrlaasi hadalkii u dambeeyay xamaasadda iyo hawlaha kale markii inta laga tago oo la celin karin iyo shucuurkiina wala ma celin karo laakiin waxaan rabaa inaan yiraahdo waxa loo yimid waa in walaalaheen aan garab istaagno waa in aan walaalaheen wuxuu qabanno waa inay gacanteena arkaan annaga masaajidda North America ku yaala habeen hore shir baan galay 40 masaajid ayaan go'aan ku gaarnay in lacag laga ururiyo qaybtii koobaad shalay baan ka ururinay 95 baan xalay soo ris garay alxamdulillah 95 baan shalay waa intii noo soo baxday waa diyaarka hadda noo inta kalena waan wadnaa berri waan ku jirnaa ilaa jumcada soo socdaan rabnaa inaan kusoo gabagabayno xaflada caawa sidoo kale magaalooyinka oo dhan uga socda waxaan u baahannahay wiilka dadka banaanka fadhiya oo geedaha hoos fadhiya gabadha isbitaalka ku umushay ee daawo la'aanta hooyada da'da ee guriga looga tagay in ay gacanteenu gaadho waxaan rabaa inaan message diro oo kulli dadkeena u sheego waxaan ururinaynay wuxuu gaarayaa oo loogu talagalay dadka barakacay ee geedaha hoos fadhiya dadkaas annaga wuxuu ururinaynaa waxaan rabaa message-ka inaad kulli sida u fahmo
lacagtiina waxay gaaraysaa dadka dhibaatooday bannaanka jooga baahan gaajaysan ooman daawo la'aanta isbitaalku ku dumay kuwaasaan rabnaa inaan caawino بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلهي وحاء بحصتين رب سبحانه وتعالى أبدكينا إيا مصيبوين كدعي رب سبحانه وتعالى هذه كقبض باديو وحاء ذغاتان لعقتان لورورين أيوه ما هالعد دقال الله تلقى لي أما هو الله تلقى لي waxa aanu rabnaa in la badbaadiyo hub iyo ilmahaas meesha ku dhimanaya laga badbaadiyo marka lacagtan waxa loo ururinayaa dadka barakacay kaliya ayaa loo ururinayaa dadka dhibaataysan ayaa loo ururinayaa micnaheedu maaha in dagaal lagu horinayo maaha insha Allah waxaan rajaynayaa waxaa qaadi doonta hay'adda haro oo ka shaqeysa samafalka marka intaas la ogaado lagu baraarugsanaado weeyaan wallahu li tawfiiq sheekhan ku cilnay insha Allah hay doctor Yahya insha Allah taala iyo sheekh Ahmed oo inoo duceyn doonaan sheekh waa noo fadhiya sheekh hay soo istaag hay doctor ka u dhibaya kadibna sheekh ay noo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم هذا الليل إذن أرن معي إمام الدعاد ما أركتان وحانا نو كائمة لاسعانات سيد محمد إيا سالحية دي إمام الدودي ويه سيدا يدو بنشرين أنا سالحي بانها سيدا يودو بنشرين يا محمد عبد الله حسن يدرا ويستعاوى هذا أمانة ثانية فردها هرتوا عمام الدودي وطها وعمام الدي درا ويستا سيدا سان هرتعاوى عمام الدودي وحن دوني يا شيخ الله كأبا المريو لكن وان دعينا إياه لكن محمد كنت دعينا يا أروح laba bilood iyo 6 habeen baan idin la joogaa hargeysaan ka soo anbabaxay laascaanadii hargeysa labaduba nabadgelyo ahaayeen wixii dhaca ilaahay baa qadara wixii xunay dhaca ilaahay looma nisbeeyo laakiin isaga qadara qadar ilaahay baa dhacay waxaan u maleynayaa raabtigayna waxaan oran lahaa oo kaliya waxa la daliishada ilaahay saas uu yiri ingiriisku waxa uu yiri daliil ma aha hal iska daayo qofku wuxuu daliishan karaa ilaahay baa saayiri nabiyullaahi maxamed baa saayiri laakiin ingiriis baa saayiri raabtiga waxaan lahaa daliil ma aha iska daaya waa arin aad u liidata insha Allah taala reerka dhibaatada ku dhacday iyo laascaanood 1960 kii baan anigu laascaanood tagay ilaa maanta laascaanood iyo buuhoodle intaasan ku noolaa 40 sanadood in Ethiopia oo aan tagi jirin tagay mooyaane markii hore aan mamnuuc ka ahaa intii hore waxaan ku noolaa abuuhoodle iyo laascaanood waxaan doonayaa sheekha kelima waxaan ku yareen noqonayaa iyar horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadka yuu ugu jecel yahay sidoo nabigu yiri yaa ilaahay dadka ugu jecel yahay wuxuu ugu jecel yahay qofka dadka waxtara ilaahay ugu jecel yahay qofka waxtarka ah ee qofka dhibaataysan waxtara ilaahay ugu jecel yahay nabigu calayhi salaatu wassalaam amal la qabta maxaa ilaahay maxaa hadana amal la qabto loogu jecel yahay amal la qabta waxa loogu jecel yahay qof dhibaataysan qofka dhibaatada ka furta waa kurbaysan yahay waa qaawan yahay xadiidkii nabiga calayhi salaatu wassalaam qof waagu u bariyay oo cunto haysta oo ammaan haysta oo nabadgelyo haysta nabigu muxuu yiri adduunyo oo dhan baa loo dhameeyay inaga caawiso adduunyada dhan loo inoo ma dhamayn saddexdii qofkan midna haysanna waa maxay
waxba ma hayo soo maaha waxaan doonayaa 10 waan noqonayaa inaad duceeyaan doonay laakiin ducadu waxbay ku xidhan tahay haddii kale walaadkii reerka u duceeyay ma maqasheen walaad baa reerka u ducayn jiray gugiina wuu u ducayn jiray jilaal gugii iyo dayrta labada waa u ducayn jiray marka gugii baa loo yeedhay gugii markii loo yeedhay waxa la sheekh maanta reerka waxaad u ducaynaysaa dadka geela ariga looda inta waad u wada ducaynaysaa allah walaadkii marka ducadaas waa maxay waa qaalin goojinaysa ka tagtay neef ariga iyo looya waxa ka tagtay dadkii buu ciido soo qaaday dadkii buu taxliil u tufay dadkii buu cashar u akhriyay loodii buu wax ku saydhay arigii buu ku saydhay geelii buu ku saydhay habeenkii oo dhanba muu seexan xagga reerku habeenkii oo dhan buu halkaa ka guuxayay waagu markuu u bariyay iyo xagga reerka u soo jeedsaday goorma qaalin la soo eriyay geelii baaba la dareersaday hoos buu u fororsaday balaayo oo maada neef la wax ku faraya loodina la dareeri ma quraacba ka degaysa isagoo gabadha ku jabsan tahay ayaa ninkii reerka lahayo wan sida uu wada wan yar baa u yimid wuxuu yiri sheekh reerka horta dayrtana waa lagu yeeri doonaa imikana waa adiga u duceeyay laakiin dayrtana waa lagu soo celin maanta wanka yar baa lagu gartay reerka u duceeyo raali ahaw walaadka de hadalba kuma jiro wuxuu yiri wanka siida markuu siidaayay buu wan yahow reerka balaaya la gal walaadkii wuxuu reerkii ninkii wuxuu yiri reerka maanta waxba ka hadhi maayo na wanka qabta na wanka reerka ka qabta reerkii wankii baa la isku dayay inuusan reerka taaban waxa weeye lacagtaad bixiseen haddaan wankii baan sii daynayaa 10 qof oo muraad leh oo wiilasha oo gabdhaha ragga doonaya wanaagsan 10 qof oo min 500 10 qof oo min 500 oo waxay doonayaan ilaahay siiyo aan duceeyo koow indhaha qofka musaafirka dacwadiisa waa la aqbalayaa qofka la dulmiyayana ilaahay dacwadiisa waa aqbalayaa qofka la dulmiyo markuu ilaahay bariyo ilaahay baryadiisa malaa'igi ma qaado ilaahay buu toos ugu tagtaa marka dalka la dulmiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala dulmiga ka celiyo ilaahay subhanahu wa ta'ala qofkii wax dulmiga allah ka qabto raali hada wad ma hadsantihiin gabdha siyaata 4 sanad idin ka maqnahay wallahi gobannimada idin ku ogaa gobonnimadii baan idin ka rajaynaya anna waa idin soo socdaa inta qura idin ku deyn maayo wariba السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله horta waxaa idinku salaamayaa salaanta islaamka dhammaantiinba waxa lagu farxa ah intaasoo qof oo muslimiin ah is dhageysana khayr Allah idin siiyo gabdho dumarka khayr Allah idin siiyo hawla noo socota horta kolle waxaan markhaati ka nahay intaas qof aan u jeedno tirada badan khaasatan dumarka u badan ko waxaan markhaati ka nahay hooyooyinka iyo gabdhaha in Soomaali dadkay ku badbaada ayaga yihiin waxaana daliil u ah maanta intaan aragno 10 jeer bay ku jibaarmaan dumarka ragga meesha fadhiya marka Allah idin barakeeyo ilaahay subhanahu wa ta'ala qalbiga wanaagsan uu idin siiyay ilaahay subhanahu wa ta'ala wanaaga idin fududeeyo waxaan rabaa inaan dhammaan idin xasuusiyo dadka horta meesha fadhiya waa qaxooti waayo waa first generation waayo first generation aan meesha fadhiya rag badan oo meeshan aan arko waxa weeye ayagoo wata warqadii ayamta sidii kooraha ka lalaada wadanka la yimid waxna meedan haysan dhamaanteen markaynu imanaynay dadkan hadda gawaarida ku wada yimid way lugeynayeen shalay dadkan maanta guryaha ka soo wada kacay shalay waxay ahayn dad qaxootiya oo section 8 aan haysan xitaa oo meelaha dadka la soo dejiyo lagu bilaabay deganay ahaayeen marka nicmadan maanta aan haysano maalin baa ka horeysay baan soo marnay maalin aan barakacnaa ku horeysay
maalin aan qaxaynaa ka horreysay maalin aydan ogeyn accountiga aydinku ogeyn lacaga ka horreysay waxaan u baahannaha marka walaalayaalow maanta waxaan isugu nimid si walaal sheekh aadan cashuur idiin sheegay arrintan waa arrin masaajidii gacanta ku hayaan arrin dadka meeshan fadhiyana waa lis yaqaana waa Soomaali oo dhan waay waxa dadka ka wada gubdeen dad walaalahooda oo Soomaaliya oo muslimiina ayadoo la marayo 21st century inay maanta ku yihiin qaxooti meesha ku dhasheen ay ku nool yihiin ilaahay ku abuuray ku yihiin waxa la isugu yimid horta waxa weeye war sidee dadkaas tabaalaysan oo dhibaataysan oo qaxootiga wax ku gaarsiina war xoolahan maanta haysano la leeyahay waxa laga baxsado ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu nasiin karaa maanta sajawashikay ku jiraan aan gali karnaa sababta ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadna wax u siiyay dadna maanta wax loogu diiday dadna maanta ay u haystaan noloshoodii isugu saaran dadna inay isugu saarnayn ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu noogu tilmaamay aayadda ugu dambaysa suurat al-an'am ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu ku leeyahay huwa alladhi ja'alakum khalaa'if al-ard wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajatin liyabluwakum fima ataakum dadka waxa loo kala saramariyay waxay tahay ilaahay sidoo idinku imtixaamo qofkii wax la siiyana imtixaan ay ugu noqoto qofkii wax loo diidana imtixaan ay ugu noqoto ilaahay maanta uu karaa inay guryahooda nabad ku helaan wayna ku helayaan hadduu ilaahay idmo it's just waxa waa matter of days dadkan waa dad wada dhashay ayaga isfahmi doona dadka meesha u dhashayna nabadooda way heli doonaan laakiin maanta hooyo aan waxba haysanin dadka Soomaaliya tagaa garan kara wallahi marka wadanka tagto sanad walba inta badan tagi jiray in kasoo sanadka la soo dhaafaan tagin ma taqaanid qofka wax siin lahayd ma garanaysid qofka soo aragto guryaha kugu dhagan oo dhan markay soo kacaan ma haystaan caruurtooda iskuulka waxay ku bixin lahaayeen ma haystaan hadday xanuunsadaan caafimaad waxay ku bixiyaan ma haystaan cunadii saddexda waqti aan anaga noo buuxdo frinjeerka noo buuxo ma haystaan waxay cunaan fresh ay cunaan ma frinjeer wax gashtaan ma haystaan qofka maba dhibeenba maalin suuq ma aadeen waad ogtiin dibka uu leeyahay maanta waxaan isugu nimid walaalayaal waxay tahay kun qof iyo ka badan meeshaan ay u fadhiso cadaaladna ma aha in la helo 25 qof oo kun bixisa ama 30 qof oo 500 bixisa meesha waxaynu ku fadhinaa kun qof aan ku fiixnaa qaarkiin waxba soo baxsateen waan ognahay ama masaajidkaad ku soo baxsateen ama si kale aan ilaygu soo qaado ilay soo waan ognahay laakiin ogaada waxaan loo aruuriyo walaalahayn waa inay noqdaan wax reflect ku ah meesha waxa isugu imaaday kun qof haday isugu imaato 40 ama 50 kun lala tago waxna waxay tusaysaa qarashaadka meeshaba kama badnaba uu ku dhowdahay markii la eego marka waxaan rabnaa walaalayaal hal mar inaan dib isu eegno qof walbo inaga mid uu dhaho war maanta waxaan haysto waxna aan reebto walaalahay maanta tabaalaysanna waxaan siiyo Soomaali waxay maanta heerkan ku soo gaartay ha isdisha laakiin waa isnoolaysaa qof walbo anaga naga mid waa og yahay Soomaali maanta caalamka la yaaban dadkan wada dhibaataysan xabada isku dhufanay marka la soo baxana ayaga xanjada isiinayo intay isdarjaan bay xanjada isiinay waa some people war waa dadku waa dad wada dhashay waa xidid iyo xigaal waay marka waxaan rabnaa in maanta aan ogaano walaalayaalow walaalahan maanta wayna daawanayaan balo waxaan saaranahay live soo ma aragtaanin marka waa la ismaqlayaa marka waxaan rabnaa reer Seattle inay noqdaan dadkii ugu qarashka badnaa oo bixiyay xaqiiqatan waagi suuqi gubtay Hargeysa waahen magaalada ugu badan oo hal gathering wax looga sameeyay magaaladan ahayd waxayna ku tusaysaa dadkan wajiyadan meesha fadhiya wajidii meesha joogan waan ogaa because waan fadhiyay in badan oo indhahiga ku dhacayaan dadkan meesha ku arkay ahaayeen marka maanta waxaan rabnaa walaalayaal inaan dib ugu noqono saddex qodob anagoo fiirinayna qodobka koowaad anagoo fiirinayna islaamnimada iyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala dadkan wuxuu na wadaajiyo diintan islaamka ah tan labaad anagoo eegayna maanta fursadaan haysano walaalahayn fursadaan haysano ma haystaan tan saddexaad walaalayaal waxa way xoolahan baxsanayno xoolo meel cid la ku dhacay ma ahan qof kasto inaga naga mid ah shilku bixiyo ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuu barakeenaya muslimiin ina caawiso iska dhaaf waxa ina siisay waxa sadaqa ah waxa la yiri tabassumuka ala wajhi akhika sadaqa that to give a smile on the face of your brother is a charity ina walaalka u qosasho oo u dhol casayso sadaqa ka warna daajabka gacanta intaad galiso wax soo saar بسم الله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين دعاء وحاد دعين دون عاوى الشيخ أحمد هذا الشيخ أحمد نور وإن لجوا السؤال له ما عنده يبقى يميل أفر سنة من نجمع مع شيخه
marka wuu yimid waxaan Sheekh Axmed magaaladii inta aad meherisay iyo inta dhaleen baa kugu filan maanta marka insha Allah taala Sheekh Axmed wuu joogaa marbu isaguna sheekhu idin yeeri doona haddii Allah idmo marka isagana inaad ajiibtaan way sida hore uu sheegay intaas waa ku filan been Allah tabaaraka wa taala walaalayaal saddex message shalay clip baan duubay saddex message baan kaga hadlay saddex arrimood mid waxaan u diray madaxweynaha Muuse Biixi midna waxaan u diray culimada Soomaaliyeed midna waxaan u diray shacabka Soomaaliyeed Muuse Biixi madaxweyne waxaan xusuusiyay wax yar la aamuso waxaan xusuusiyay oo Ilaahay xusuusiyay waa dhaweyd oo mu'tamar ansaaru sunna trust oo ku taal Nairobi nin la yiraahdo General Jiir waa nin khayr badan waan soo arkay baa mu'tamar ka qabtay Hargeysa culimaduna way soo wada yimaadeen kadibna madaxweyne Muuse iyo qaabilaan oo guriga madaxtooyada ugu yeeray runtii hadal qiimo badan buu ka yiri halka waxa hadalkii xusuustay inuu yiri aniga waxa ay qaban kara culimada Soomaaliyeed gaar ahaan hadalka wada dhageysan kartaan waana ku soo gudbiyay clipka oo lagu daray gaar ahaan culimo magac dhabay oo Sheekh Mustafa iyo Sheekh Lilada Sheekh Xasan Abdulsalaam ay kamid yihiin labadan baa ay qaban kara buu shalay waxaan ku yiri madaxweyne culimada Soomaaliyeed oo dhan baa maanta joojo kula dagaalka adiga wada adiga dad magaaladoodii meeshoodii degan baad ku duushay dagaalka jooji oo dadka ha dhamaynin oo dhiig xaaraan ha gelin oo adigoo dad noqday ha la gelin qabriga inaad adigoo dhiig gacmaha ku wata naseexaynaga ahayd runtii message ka labaadna culimada Soomaaliyeed baan u diray oo runtii aad aan u dhaleelayno qaar badan oo kamid ah waxaan u leeyahay culimadu xuduud male waan ku bilaabay hadalkayga dadkana way u dhaxeeyaan ummaddu hadduu dagaal ka dhacana iyaga kala dhicin jiray culimada joogta Hargeysa iyo kuwa jooga Garowe iyo kuwa Muqdisho iyo kuwa Kismaayo iyo kuwa Baydhabo iyo kuwa meel walba jooga Soomaaliya inay soo safraan oo subaxii tigir soo goostaan oo kulligood laascano iska xaadiriyaan dagaalkaasi waa joogsan lahaa culimada dadka Soomaaliyeed ma laayeen walina arintaas way taagan tahay culimadii biidnillaahi meel fiican bay hawshaas maraysaa message-ka saddexaad shacabka Soomaaliyeed meel uu joogaba waxaan niri maanta aan caawino walaalaha laascano reer laascano hala caawiyo hala garab istaago waxaan haysan aan ku bixino waan uba caawa xafladda u fadhino mid leeg baa ka dhacaysa magaalooyin badan habeen dambe Minnesota ay ka dhacaysa masaajidii iyo shacabkii oo dhan baa diyaar gabdhaha waxaan niri guryaha garaaca u taga meelaha la shaqooyinkii kambaniyada dadku ha wareegaan dadka aan inoo imanin caawa bariha loo tago ma aha qadiyadeenu waa insaani waa human waa bini aadam waa dad maanta goomow annaga dagaal kama hadlayno waxaan ka hadlaynaa dad inoo baahan ma caawin karnaa aw xadiidkii rasuulku uu yidhi al-mu'minu lil-mu'mini kal-bunyaan يشد بعض ذاتك سلا سؤال كي أوي مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد ذاتك يولها الله يا دينتو حديث كان يولها الله يا ذاتك مسلمين تا وحال الجعيل كدحية يا درين كدحية إيو رحمة كدحية وهل جسدي هل قفوية هذا هو حرمنا إن تاي نجموقته إن القصر يوجوابنا معه وإنت العاوة إنا فماها إنه أرورني ولي مقالده هسي صعطه نجستويك هلا سمايو متكلم وحرمنا إنا ورالهن أن كفر إنه إني أوجادان قف بعدها راس كابولي راس عصير أنتو رحيسا وحقيقة ما أنتو هبالوي وحصحنا بنو آدم كواكرا وحخلدنا بنو آدم كواكرا dadkeenu waa kulli dadkeena
laakiin unsur akhaaka daaliman oo madluuman baa la yidhi walaalka hadduu gardaran yahay gacanta qabo haddii laga gardaran yahayna garab istaag haddaba waxaan rabaa insha allahu tacaalaa inaynu taa ballanteenu ahaato dadka caawa wax isku qore ee gacanta taagayay lacagtaa waa laydinka rabaa xalay annaga shir baan lahayn culimada shalay lacagtaan ururinay oo boqolkiiba 10 intii aan rabnay xitaa aan soo xaroon 95,000 oo xalay noo soo xarootay baan xalay ka shiraynay maanta ma dirnaa si isbitaalada loo sii gaarsiiyo mise waa isla sugnaa dhowr bari gudahood lacagtaad gacanta u taagteen ma aha lacagtii masaajidda iyo intii la isku qoro dhawaan haafna dadka hadday rabaan ayna keenaynin waa lacag la rabo qof bannaan fadhiya inay beri gaadho qof walba oo gacanta taagayow iska bixi caawa haddaad caawa haynin beri soo diyaari wiilashii gabdhaha ku iman ee aad baad kulligiinba u mahadsantihiin ducada u dambeeya waxaa yeelan doonaa adeer sheekh axmed sheekh aadan canshuur aadan waa taqaanaan meeshuu fadhiyo iyo businesskiisa sheekh aadan baa loo wada imaan karaa qof alla qofkii lacag isku qoray oo caawa ka soo gaarsiin karo beri sheekh aadan ha u yimaado insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سيدا الشيخ علماء يدين شيئين وحلين الشيخ والدين ونرهم فلقن عاوة أن نفردنه وعباده طلابة أدقاده أجربة لقو قرية دنبي وكاد عيا درجة كرلوسي قارية قفل بان ودادي أتكسو بحدي تكسي دير كنقو سي أجربة وكوكوبته وقاد عاوة إنه عبادة كتير ولا الله إن مساكين تا نبكو كل عبين عاون هنا إن شاء الله تعالى وإنه دعاء سنة إن واد ما هتسنتهين دات كان عاوة هل كان كنول وحن إلهي ويديننا سبحانه وتعالى دعوة إنه والأقبل إياه شيء شرعي أو أن حرانا هين أو دبعت كم موقن بين السون نمت مركز سلا درادة دعوة والأقبل إياه علماء ويد هذا الشيء دكتورك يا شيخة أن يرتي رقي الدمر أرنتن كسو قيم قلي سايسوق سو هذا شيء أنت أردن قارك أي أجرك أوليهين ما أنت قيامة الله كثوابيه دت كان عشان يسوق يمد إلهي سبحانه وتعالى أنو يا رب ذنب أركي هدي أن سيارة قادنا يوم وحيالا بدن انت شيغو يا دورن لهيدين يعني دورن لهيدين كيمان سبدا قوريا لكن waxaan arkay ilaahay wuxuu ka warqaba waxaan arkay oo ilaahay siiyay oo intaan ka bariyay sidii aan markii u arkay ma koobi karo caawa waxaan ilaahay weydiisanayaa dacwada aynu ilaahay weydiisanayno inuu ilaahay naga aqbalo ilaahay waxaan idin weydiinaynaa dhammaan ahaan marka hore caawa inteena halka isugu timid dambigooda Allah dhaafo dambigii waalidkooda Allah dhaafo dambigii waalidoontoodii kala Allah dhaafo adduunyadan aynu ku noolahay ceeb ilaahay kuwa uu tusiyo Allah waa nagu dhigin ilaahu aakhiraha nagu cadaabin ilaahu amalka aanu salaad aanu bixinay kuwa laga aqbalo ilaahu naga dhig ilaahay oo ciyaalka aynu dhalay kuwa waaweyn iyo kuwa yaryar kuwa barakale ilaahay oo nooga ilaahay oo cadaabkaaga naga nabadgeli ceebta adduun ilaahu naga badbaadi cadaabka aakhira ilaahu naga badbaadi qof walba muraadka uu leeyahay una afka ka sheegayn hoosta ka qarsanayo gabadha wiilka jecel wiilka gabadha jecel islaanta odayga tuhunsan afka aan ka yeedhayn qof walba waxaad qalbiga ku hayso ee sharciga ku banaan alla mirta ka saaro qalbiga ku qabso waxaad jeceshay ee sharcigu uu gol yahay caawa ilaahay ku siiyo inta adduunka ku nooshay caafimaad wanaagsan ku noolow ilaa haddii kaliyo ku fadhiisano lagu ku goodo oo nolol xun ma ahayn ilaahay subhanahu wa ta'ala inta adduunka ku noolahay nolol wanaagsan allah ina siiyo nolol wanaagsan iyo geeri wanaagsan oo inagu oo la ilaaha illa allah adduunka aan ka tagno ilaahu labadaas aan ku weydiisanay siyaaral dadka ku nool ilaahayow
waxaanu kaa barinay gabadh bahal loo sameeyo ilaah wana badin gabadhna bedelo ilaahayow waanu kaa magan galay siyaaral ilaahow wiil la bedelaanu kaa magan galay ilaahayow siyaaral 99 mid dhashay iyo mid 10 dhashay odaygeeda isaystaan baanu ilaahow kaa magan galay ilaahayow odayaasha wanaaji ilaahayow islaamaha wadaaji waxyaalo badan baa jiro islaantu markay iska maydhatay waxoogaa oo wadaad kale isku qayliyaan oo Itoobiya ka tagto xaqii baan tagayo dhalinyaro u sheekayso maxaa meeshaba oo hadda odayga ma iska fasaxdido oo hadda maxaa xornimo oo ilaahu kuwa naga badbaadi ilaahu naga badbaadi islaantii oo timaha yar ee madoobaysato soo maydhatay wiil yarba maxaa odayga meelaha kugu haystaa insha Allah ilaahu kuwa naga badbaadi سيارة الإله وحنا ويدي سنة عبي عذاب الدنيا إله كبد بعد السيارة إله عرور تذا كوا الدنيا هو ناقصن إله نوجدك إله نوجدك إله سبحانه وتعالى قل يا هاي نكهن مد إنه نبت قليكم الله ينوع عليهم لعتها عم بحناي ما أنت قيامة جد كسرات مرك الله مرة يوم تيل يجرهدو صدقني ما أنت ساد كبد بعد أو جنك وقشة الله ينوجدك الله ينوجدك أولاد ونكسر الله ينسيه أرزاق ونكسر الله ينسيه عذاب الدنيا عريض الدون لبضع الله ينقبضيه عذاب آخرية عريض الدون لبضع الله ينقبض بعديه إله هو نقبض بعديه إله هو نقول قبضاه يقول كسبن ونقول سنة إن شاء الله تعالى مركوه رسباي نعت هذا اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم waxaan soo dhaweynay xaliim sacdiya habeen wanaagsan caawa habeenadu waa ka duwan tahay habeen masrax la istaago oo caawa ka qiimo badan oo ka qurux badan ma jiro waayo caawa waxaa la caawinayaa dad dhibaataysan marka masraxdii hore way ka fiican tahay waxaa iga soo horeysay walaashay cadar oo aan ogahay kaalintaydii iyo taadaba inay iyada gashay ما شاء الله أول بسم الله يا يدا قرآن أدانا الحمد لله ضد إسلام بيننا هاي أواني ذني بذا فرحة هذا ووضا إذا جاء أخرن هو شكاون كيا أودانا وحايس كالي بهن وين أمين وضا دها إلهين وأقبلوا أمين وضدها إلهين وأقبلوا ملائكة أورورا يرنتينا هايلتيران إفكا كلي بانا خير كنو أبدا نغوي إشا جني قاين عوري قايدين أراك يا سيما ذا أذك البابان إذين كدقاي سلق النبي يودمان سورة ذا قرآن وسانتا أنقاذ سودان بانكو دارهايا سواء خميسة دايان صوت كديغانايا إنا فتح بيهر سعوتوكو سعونايا ورعاو الرحمن يساعويهايا انتي سبحو ينباسو أغريناهايا سقاشا جربانكو دارهايا سبحان الله سبحان الذي سقر سورة ذيكو تال كوكو سقوتي يسعب كايا يكبحين سميع البصير وسهلنا مرادنا عاو ولا شيء نسوه الرئيسة هو شيء ذي تهدي قبطي وحان لي هاي دادك نباتيسن نباتة الله كسارو انت وحبسطن وحان لي وحا يستا الله يدين بديو الدوني آخر وحا يدين كقبريا ينمعينو إلهي يدين سيو أولادنا الله يدين بركيو لاسنا عنود حكو ليستو لاسنا عنود حنولاتو waxaan ka codsanaynaa dhammaan gabdhaha noo yimid oo wax na siiyo anu reel casnood baa ka tirsanahay waa u mahad celinaynaa qof walba wax uu noo keenay waa u mahad celinaynaa ma sha Allah abtigay waa salaamaya Sheekh Ahmed adeerkay waa salaamaya Sheekh Ahmed kale dhamaantiin waa idin wada salaamaya Yaxya waa salaamaya Sheekh Maxamed waa salaamaya dhammaan cameraman-kayga oo meel walba aan tago isla joogno waa salaamaya Mustafa waa salaamaya ninka sheekooyinka ila qoray ila sameeyay riwaayadaha
dhammaantiin waa idin salaamayaa soomaali ha midowdo soomaali ha israacdo inta noo kaalmaysan ilaahay ha u kaalmeeyo